Ethiopia in ka badan 2 milyan ayaa ku barakacay dagaalada qowmiyadaha u dhaxeeya ee dalkaasi. Boqolaal ayaa dhintay ilaa markii uu soo cusboonaaday dagaalka u dhaxeeya Oromada iyo Soomaalida horraantii bishan. Koonfurta waddanka waxaa sidoo kale ka jira barakac xoogan oo ka dhashay dagaal qowmiyadeedka. Hay'adaha gargaarku waxay sheegayaan inay taasi kordhisay dhibaatada bani'aadamnimo. Cabdiraxmaan Cadow ayaa ka waramaya. kan oo gacmo maran ayaa guryahooda ka soo cararay waxayna u baratamayaan wax kasta oo ka goyn kara gaajada iyo qabowga. maalmo gudahood ayaa magaaladan yar waxa ay hoy u noqotay in ka badan 60,000 oo qof oo ka soo baxsaday dagaal u dhaxeeya qowmiyadaha Oromada iyo Geediyo ee dega koonfurta Ethiopia. inta badan waa caruur iyo haween nugul sida Burtukaan Maru oo labada toddobaad ee soo socda u mali doonta canugeeda shanaad. qof dumar ah oo uur leh way ku adag tahay halkan bal fiifiiri bi'adan sideen cunugeyga halkan ugu dhali karaa. dawladdu waxa ay leedahay waad ku laaban kartaan guryihiinne welina dilal ayaa dhacaya waa dhibaato weyn. kuwani waa dhibanayaal kale oo ku soo barakacay dagaal qowmiyadeed oo ka dhacay gobolka Soomaalida Ethiopia. ciidamada deegaanka Soomaalida ee Liu Police ayaa lagu eedeeyay in ay bartilmaameedsadeen dadka aan Soomaalida ahayn ayna geysanayaan dilal, jirdil iyo boob. waxaa iga dhintay 6 qof oo qoyskayga ah, carruurtayda waa la gowracay, xaaskayga gabadh la dhalatay iyo hooyadeedna waa la dilay. dagaalo beeleedyada noocaani oo kale ah kuma cusba Ethiopia balse waa xajmiga iyo waqtiga barakacan u dambeeyay oo ay dad badan la yaabeen ayna walaac ka qabaan amniga dalka. hay'adaha gargaarka ayaa sheegaya in ka badan 2 milyan oo qof in ay ku barakaceen dalka oo dhan tani iyo bishii September ayna aad uga baahan yihiin gargaar. waxaanu aragnay dad aad u badan oo tiradoodu ay ku dhowdahay 700,000 oo qof. dadkaasi muddo kooban ayay ku wajaheen dhibaato ka dhalatay qulqulatooyinka. waxay miciin bideen dhismooyinka danta guud sida iskuulada oo kale iyo xarumaha tababarka. waa walaac ay dawladdu qirsan tahay. ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa ballan qaaday in uu wax ka qabanayo colaadaha khatarta gelin kara isbedelada dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed ee uu la yimid tani iyo intii uu xilka qabtay bishii Abriil ee sanadkan. dad badan oo soo barakacay ayaa hadda dibadejin helay halka qaar kalena ay weli sugayaan. waa in waqti iyo dadaalba lagu bixiyaa sidii dadkaasi dibadejin loogu samayn lahaa. waxaan ka shaqaynaynaa arrintaasi, horumar ayaana ka samaynay. waxaan gacan ka geysan doonnaa sidii muwaadiniinta dibadejin loogu samayn lahaa goobihii ay ka soo barakaceen. taasi ayaan ka shaqaynaynaa. balse waxay qaadanaysaa waqti dheer in dadka halkan ku sugan laga dhaadhiciyo arrinkaasi, kuwa oo waayey wax walba oo ay haysteen kana walaacsan colaadaha soo laalaabanaya.